kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa SRTV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jijjiga ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo aad toddobaadkii xilligan oo kale si toos ah uga daawataan toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa arrimo la xiriira dhanka arrimaha bulshada gaar ahaan ilaalinta xuquuqul insaanka iyo arrimaha jinsiga wax barnaamijka martigu waa toddobaadkan agaasinka waaxda xuquuqul insaanka iyo arrimaha jinsiga ee xafiiska nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida maruuxani maxamed khayre oo barnaamijka kala soo qayb gashay dabcan intaan barnaamijka guda jirno wax badan waxaan iska weydiin doonaa waxyaabaha ay waxdeeda ay qabato hani ku soo dhawow barnaamijka arrimaha bulshada ee toddobaadkan waad mahadsan tahay ilqacse waa gartay hani waxaan rabaa marka ugu horeysa barnaamijkan arrimaha bulshada intaan guda jirno wax badan baan dabcan kaa weydiin doonaa shaqadaada laakiin ugu horreyntii waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo waaxdaada maxay qabataa maxay qaabilsan tahay waaxda waxaa la yiraahdaa saad hore u sheegtaba waaxda ilaalinta iyo taageerada xuquuqul insaanka iyo arrimaha jinsiga ayaa la yiraahdaa waaxdan waxay ka mid ahayd isbedelkii balnaarnaa ee deegaanka ka dhacay gaar ahaan xafiiska nabadgelyada isbedelka ka dhacay ayay qayb ka mid ahayd sidaa ayadana waaxdan lagu aas-aasay sababaha loo aas-aasayna sababo badan ayaa loo aas-aasay mid waxay ahayd in laga bedelo dadka fikirka ahaa xafiiska nabadgelyada waagi hore cabsi baa ka jiri jirtay inay dadka la yiraahdo meesha waa lagu xidhayaa waa lagu dilayaa fikirka si loo bedelo ayaa waxaa la sameeyay waaxdan ilaalinta iyo taageerada xuquuqul insaanka talabaadna waxay deegaanka tacdiye fara badan baa hadda ka hor ka dhacay tacadiga adduunka dhan buu ka dhacaa laakiin deegaankeena tacadi aada u xun baa ka dhacay sababaha awgeed ayaa loo aas-aasay in dadkii hore dhibaatooyinka soo gaaray meelihii ay iman lahaayeen ay kusoo ribood gareyn lahaayeen haddii ay ahaato magdhow haddii ay ahaato caafimaad haddii tahay iyo haddii ay tahay laftirkeeda in wax loo qabto marka waaxdu qaabkaasay u aasaasan tahay waxyaabaha ay waaxdu mandatekeeda waxaa weeye inay dabagal ku sameyso for example kaysaska kufsiga oo kale oo dhaca ama tacadiga waxaan toos oo la shaqeynaa arrimaha haweenka waxay nala soo xiriiraan markuu keysku uu tacadi ama dhaco ama kufsi dhaco ayagu waxay qaabilsan yihiin qaybtan ama caafimaad ahaan in caafimaad qofkii la geeyo baaritaankii one stop center bay leeyihiin one stop centerka in la geeyo qofkii la caafimaad ahaan la baaro even cadaymihii dhakhtarkii iyo xiriirlaanintii iyo booliskii ay meesha ku wada shaqeeyaan annaguna waxaan qaabilsanaa qaybtii qofkii dhibana ahaa siduu xaqiisa ku heli lahaa maalan qofkii dhibaatada geysto kale in lasoo qabto sharcigana la bariyo marka qaabkaas ayaan anagu u qaabilsanahay booliska laftirkooda waan wada shaqeynaa komishanka booliska aad baan u wada shaqeynaa arrimahan baana ka wada shaqeynaa xafiiska arrimaha haweenkana waan ka wada shaqeynaa wagartay marka tusaale waaxdu maadaama ay cusub tahay sidaad sheegtay markii ugu horeysan ay tahay oo isbedelkii kadib la hirgeliyay ay tahay way adag tahay in markii ugu horeysa shaqo markaa bilowdaan si fudud dad aad wixii ujeedka dadka looga dhacsi way noocee isticmaasheen si aad dadka u fahansiisaan in aad tihiin dad waax doonaysa in xuquuqda ka shaqeyso maxaabiista waxaan sameynaa horta tababaro badan bixina baa jirto oon sheegnay stakeholderada wacyigelin badan oon xafiiska arrimaha haweenka iyo komishanka booliska laftirkooda in ay ku baraarujiyaan inay waaxda jirto ee meesha ay ka shaqeyso dadka waaga hore iyo hadda waaga hore xafiiska maynan ogeyn waxaa jirta xafiiska page buu leeyahay beejkaas baan waxaan soo dhignaa geedi socodka waax walba waxay qabato dadkuna aad bay ugu xidhan yihiin marka hadda waxaa noo suurowday inay dadka fikiradii qaldanaa ay ka baxaan kadibna toos annaga mar waxaa jirta kaysaska annaga toos noogu yimaadaan nala soo xiriiraa ama qofkii oo victim oo socda noo yimaada kadibna xafiisyada qusayso sida arrimaha haweenka kale ayaan u dhaadhicinaa wixii kale sharci marin annaga roolkay ciyaar maadaama aan security sectorkina aan nahay oon ka shaqeyno waa gartay dhinaca xuquuqda insaanka dib aan ugu soo noqon doonaa waxaa sidoo kale waaxda ku jirta dhinaca jinsiga saa sheegtana qaybta haweenka oo kale waa ka shaqeysaan maxaa ka qabataan haweenka waxaan ka qabanaa qaybta haweenka kale waxaa jirta waxaan sameynay commission ama committee baan sameynay la yiraahdo guddiga ka hortaga iyo ilaalinta arrimaha tacadiga ka dhaca dumarka ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guddiga annaga ayaa ka ah
liidka ah ama xafiiska nabadgelyada hoggaan waxaa weeye guddi loo xil saaray maadaama uu mar walba tacadiga usoo lalaabto guddi loo xil saaray inuu dabagalo tacadiga ka dhanka haweenka iyo caruurta annaga ayaa xafiiska nabadgelyada ayaana liidka ka ah ama hogaaminaya waxaa nagula jira xeer ilaalintii baa nagula jirta komishinka booliskana waa nagula jiraan waxaa kaloo ku jira arrimaha haweenka xafiiska arrimaha haweenka ku jira stakeholder kalena ku jira laakiin ayaga mainka ka ah for example hadduu tacadi dhaco waa xafiisyada ay qusaysay marka si aan u wada shaqeyno oon qof walba in common page aan u ahano guddiga saasaan u sameynay wuuna shaqeeyaa biloweeyo bil walba mar ayaan kulanaa kadibna waan is update garaynaa meesha inta keysasa la helay waxyaabaha la xaliyey keysaska qaarka maxkamadda jooga inta xeraalinta joogta iyo inta bendinga ah iyo inta aan weli laftarkooda aanan laga shaqaynin marka qaabkaasaan isku update garaynaa marka tacadiga markaan leena nooca tacadiga ah waxaa laga yaabaa in dad badan isweydiin karaan marka nooca tacadiga ee haweenka iyo caruurta muxuu noqon karaa tacadigu wuu iska fara badan yahay tacadi waxaa dhici kara xagga dhaqaalaha tacadi jir ahaan baa jira tacadi waxaa dhici karta qofkii oo lacaayaa dhici karta tacadi jir ahaan baa jira oo qofkii physical lagu atagarayaa jira marka tacadigu wuu iska fara badan yahay marka waxyaabahasaad haweenka kala shaqaysaan marka kiisaska noocaas aad aragtaan maxaa samaysaan waxaan sameynaa kiisaska nooca markaan helno for example hadduu yahay tacadi jir ahaan ama qofkii ama qofsi oo kale hadduu dhaco arrimaha haweenka ayaan la xiriirnaa keyska ku wareejinaa rool baan kala leenahay ayagoo waxay sameynayaan baaritaankii dhakhtarkii iyo in qofkii uu caafimaad helo marka hore cadaymihii laftirkooda booliska ay kala shaqeeyaan qofkii oo laftirkeeda psychosocial support la siinayo oo qofka markuu dhibaato ay ku dhacday ayagoo u qabanayo dad arrimahan ama u qabanayo dhakhtarkii cilmi nafsiga u qabanayo qaabkaas annaguna waxaan ku sameynaa dabagal qofkii dhibaatada geysta oo kale qaabkii loo soo xiri lahaa sharciga loo mari lahaa ilaa heer maxkamad marka tan iyo markii la asaasay waaxdan maxaan ku qiyaasi karnaa kiisaska arrimahaas la xiriira ma jiraan wax kiisas oo aad aragteen ha way jiraan oo iban shalay bay u dambeysay kiisasku mar way iska badan yihiin marna way yar yihiin way jiraan maalmoba way noo yimaadaan kiisaska ama waxay noogu yimaadaan direct ama indirect way noogu yimaadaan adigoo isbuucii waxaa laga yaabaa 3 kees 2 kees 4 kees inaan leno kiisaska badanaa waxay noogu yimaadaan gobolada waayo goobo fogfog baa jiroonan kiisaska laga soo report garaynin tacadiga ugu badanna wuxuu ka dhacaa goobaha fogfog buu ka dhacaa meelaha aanan maamulka si fiican unooga shaqaynin ambalaas aanan lahayn ayuu ka dhacaa keeska marka uu soo daahayaa badanaa xitaa haddaan halno cadaamihii baa meesha ka baxaya marka goobaha fogfog buu ka dhacaa kuwa kale ee noo dhow sida IDP-yadoo kale ka dhaca ayaa hadda noogu badan waxa noo yimaada okay marka tusaale goboladoo kale goobaha fog bay kiisaska idinka yimaadaan sidaad sheegtay dad idin joogaa jira oo dabcan kiisaska lagu soo hagaajiyo mase si isku dadkan kula soo xiriiraan deegaanku degmo walba waxay leedahay xafiiska arrimaha haweenka ee jira madax xafiiseedka arrimaha haweenka ee jira waxaa kaloo jira gobol wala commissioner boolice baa jira hoggaan nabadgelyana uu jira laamahaasaan la xiriirnaa ayagaana wada shaqaynahay weliba waxaan si toos u wada shaqaynaa commissionerada booliska gobolada qaar baa si toos noogu xiran xafiiska nabadgelyada kale waxaa jirta command post 24 saac waxaa jira report waxaa la helaa security report ayaga laftirkoodana waan isticmaalnaa waan ka saaranaa marka saasay ku yimaadaan marka tusaale kiisaska iminka markaa heshaan dabadeed aad baartaan idii caddaatay inay kiisas maaragtay si ula kac loo sameeyo oo kaleeto maxaa xiga maxaa samaysaan markaa waxaan sameynaa dee sharciga ayaa jira cadaalad in uu qofkii helo qofkii kalena uu sharciga maro taas ayaan ku dadaalnaa oon sameynaa waana dadaalaynaa insha allah systemkana aad buu noo caawiyaa hadda dowladda jirta dhinaca xuquuqul insaanka haddaan usoo wacdo hani xuquuqul insaanka marka la leeyahay uu ballaaran yahay markaa eegno dabcan waa markii ugu horeysay deegaanka laga hirgeliyo sidaa sheegtana dee isbeddelkii dib la hirgeliyey maadaama xilliyadii hore aysan jirin sababtana in dadkii cabsidii waxaas maaragtay si xabiis maaragtay dadkii loogu wacyigeliyo dhinaca nabadgelyadana bulshada iyo isdhexgal ay u sameeya hay-ada nabadgelyada in loo ogolayaa saa sheegtay dhanka maxaabiista oo kaleeto haddaan u weecdo
waxaa jirtay warbixin dhowaan aad maaragtay wareysaad bixiseen oo ku sheegtay in maxaabiista u tagtaan dabadeedna aad wax badan kala sheekaystaan dhinaca maxaabiista maxaad ka qabataan maxaabiista labaan u kala qaadaynaa waxaa jirtaa maxaabiista ku xiran dambi baadhistaan weli maxkamada ilaan xabsiga dhaxan gelin baa jirta iyo maxaabiista xukumanee xabsiga ku jirta maxaabiista hadda xabsiga ku jirta xabsiga lagama sheekeyn doono lagama sheekeyn karo 3 sano iyo barhka hore wixii ka jiray waad dareemi kartaan laakiin hadda isbeddel ballaaran baa ka dhacay maxaabiistoo kale dee hadda dilna ma jiro taacadina ma jiro cayna ma jirto bahdilna ma jiro xabsiga qofkii kaliya xuriyadii uu ku dhaqdhaqaaqayay inbuu halkaa ku waaya ma ogi wixii kaloo dhan xaggaa way ku haystaan inkastoo na dhihi karin 100% maxaabiistii waxay u dhammaystiran yihiin laakiin waxaan ka eegnaa maxaabiista in la soo booqdo kale familigooda inay booqdaan oo kale iyo in kale safetygooda ama badqabkooda laftirkooda ayaan weydiinaa toos baan weliba u wareysanaa waxaan kaloo annaga u tagnaa xafiiska ugu tagaa waxaa way tagaan cadaaladda tagta maxaa annagaa tagnaa way tagaan qodaa qosayso dhan xafiisyada qosayso dhan way tagaan way booqdaan xabsiga waxaan kaloo ka eegnaa caafimaadkooda guud moraalkooda waxbarashadooda oo kale qaabka wax u bartaan iyo inay technical skills laftirkooda yahay waxbarashada kaliya ma qoraalka ma waxyaabo ay meesha ku helaan ama farshaxana ama skills ay meesha ka helaan oo kale waxaasoo dhan baan eegnaa on soo eegnaa iyo faydhowrkooda laftirkooda iyo environmentiga iyo bayday ku nool yihiin siday tahay iyo waxaasoo dhan baan ka wareysanaa marka tusaale in xuquuqdooda ay heleen maadaama aad doonaysaan ogaataan haddii dabcan dhacdo in xuquuqdooda si wax u rabeen isin u helin oo kale idiin sheegaan maxaa samaysaan waxaan sameynaa cidda qosaysan la xiriirnaa hadda cunto laan ka tabayaan laakiin qori xafiisyada qosaysan dhana cuntada loo kordhiyo caafimaadka sida xafiisyada caafimaadka oo kale anagoo la xiriir hogaaminta isticmaalayna waxbarashada kale waa sidoo kale marka program hadda waxaan wadnaa laftirkooda isku soo xireyno TVET-ka oo kale inaan bal way ka sameeyaan laakiin ay xoojiyaan maadaama anagoo coordination aan nahay waxaanaga xoojin wacyigelin tababaro dabagal waxa ay follow-up aan nahay cid walba qusayso waan la xiriirnaa waanan anagoo matalan xafiiska nabadgelyada inkastoo ay hawshan iminka aad wadaan howl adag ay tahay marka dhan loo eego maysan jirin miya wax caqabada aad kala kulantaan waa caqabadaha way iska jiraan isbeddel markuu ka dhaco meel ka dhaco adduun ka dhaco isbeddelka inuu hirgalo waxay qaadataa long time waqti bay yar qaadataa challenges baa iska yimaada isbeddelkan wuxuu ku dhacaa gradual ayuu ku dhacaa dowladda maadaama hadda 3 sano ay barjito isbeddel ballaaran bay samaysay laakiin sidii loo lagaa baa jira waa gartay marka tusaale dhinaca wada shaqaynta oo kaleeto hay-adaha sharciga oo kaleeto qaabkee wada shaqaysaan wala si fiican ayaan u wada shaqaynaa waxaa ka caqabadaha xogaa waxay yara baahantahay system change in la sameeyo adduunka hadaanan system wax laga bedel nidaamka lacag walba baxdo wax ma tarayso laakiin fikir yaal oo qofku u keenay haddii la dhaqaajiyo wax laga wax badan inay tarto iyo wax walba yimaadaan marka xagga wada shaqaynta bahwadaagta aad bay u fiican tahay wax saasa caqabada ma jiro waa gartay marka tusaale markaad rabtaan inaad wax badan ka ogaataan xaaladahan la xiriira dhinaca dabagalka aad ku sameynaysaan xuquuqda insaanka oo kaleeto gobolada kaleeto ama caasimadda oo kaleeto meel kasta ha ahaato ma waxaad samaysaan socdaal aad ugu kuurgalaysaan oo wareegtaan mase waxaa jira ribood aad xafiiskiina aad ku heshaan hadda matalan hadda dambi baadhistoo kale meelaha detention tarada hadda meelaha ugu yara badan caqabadaha ka jiraan ay ku badan yihiin horta China group oo kale ku fara badan maanta markaad isbuucna ugu tagto 150 waxyaalaha inay sii biiraan ayaa ugu badan meelahaas kale waxaan tagnaa isbuuciiba mar baan tagnaa soo eedna wixii la xukumayo kale inay maxkamadda waxay qof waxa weeye 24 saac gudahood in maxkamadda lagu geeyo aan halkaa lagu siihin marka waxyaabahaas aan ka eegnaa markaad eegtaan marka aragtida bulshada kaga imaanayso tusaale inta bulshada dhex socotaan ama shaqada aad ku jirtaan waxay noqon kartaa bulshada aad bay noo bogaadinaysaa dadka xafiiska ku xiran beejka ku xiran aad bay u bogaadinayaan in xafiiska nabadgelyada uu tilaabo sidana qaado in fact
marka loo eego Ethiopia oo dhan xafiisyada nabadgelyada ma leh waaxdan ma leh marka anu waxaan dhahnaa role model baan u nahay marka loo eego Ethiopia oo dhan marka dadka aad u bogaadeen oo inuu ka faraxsan yihiin waa gartay tusaale marka kiisaska haweenka la xiriiro kale waxa laga yaabaa tacdiga haweenka oo kale markaan soo qaato in adag tahay in gabadha markii kiis ku dhaco ama tacdi loo geysto si toos ah u sheegto taa laftirkeeda waxooga waa heer caqabada naga haysta qaybtan dambi baarista dumarka booliska ayaa caqabad naga yar haysataa haddana waxooga waxaa la sameeyay improvement aad la sameeyay badanaa hadda dambi baarayaasha deegaanka commissionka booliska ma leh wax dumar weerihiin ma leh horma ma lahayn laakiin hadda way soo yar kordhayaan oo ma leh dhibka hadda ugu weyn hadda aan haystana waa qaybtaasoo markuu ninka detective-ka ama ragga ah uu baarayo gabadhii 100% kuma kalsoonaanayso ama 100% ma sameynayso ma open up ma noqonayso uma furfurnaanayso waxa laga yaabaa cadeymo badan inay qarisaa laga yaabo laakiin gabadha markay ay tahay dambi baarada tahay qof waxaa jirta xibaan inay sameyso physical check up inay sameyso cadeyntu 100% waa qofka marka dambiil victimska ama dhibanaha ah inta kale sida lagu soo saari lahaa markuu ninka ragga wax baarayo iyo markay gabadha wax baarayso waan kala duwanahay even psychologically qaabkay gabadha wax u baarto iyo raggu way kala duwan yihiin oo Ilaahay isku sinooma abuurin isku sinanooma qaabkay wax ay u sameeyaan dumarku detective-ka ama u soo saaraan ninka uma soo saari karo marka hadii la kordhin lahaa waxaan cadeymo badan oo heli lahayn oo la heli waxaan dhihi lahaa even laftirkeedan dad badan oo xajida dad iska aamusan oo dhibanayaal ah laftirkooda waxaan dhihi lahaa inay hadli lahaayeen ay heli lahaayeen xuquuqdooda dhinaca dhaqanka kale markii holo noocan la galiyo waxa laga yaabaa marka qaarkood dhaqamiyeen wax badan iska hor iman karaan haye dhaqanka horta waa caqabad ugu weyn hata even haysata hay'adaha cadaaladda way jiraan caqabado badan laakiin waa mid kamid ah even ay ogolaan waayeen inay hay'adaha cadaaladda ay shaqadooda qabsan waayeen ayagoo loo aaneynayo odayaal ama matalan gabar baa dhibaateyn ama la kufsan labadooda qabiil ama labadooda jifa heshiinaya waxa laga yaabaa inay kala qaataanba xoolihii aan dhibir gabadha kama soo gaarayaan gabadha waxay ku weynaysaa meesha sharafteedii caafimaadkeedii maxaa muuqaalkeedii bulshada waxa laga yaabaa inay ka hadho waxbarashada inay ka hadho environment-ga inay ka hajirtaa laga yaabaa oona gabadha loo sameynin maskax dejin shaqo abuur loo sameynin la dhihin dee waxaan ku dhacay gabadha ka soco la dhihin even waxay laga yaabaa eventually markuu dambaysiinay baan guurkeedii ku weedaa meesha iskaga tagto marka caqabada ugu weyn hadda hay'adaha cadaaladda haysata waa qaybtan xeerjajabkana sareynta sharciga uu ka soo horjeeda oo in xeerjajab kufsi in xeerjajab la geliyo waa khalad weli ma dhacday arrimo noocaas iyadoo la xiriirta haddana dhinac dhaqan in lagu dabaqo waan aragnay maxkamadan ku aragnay kiisasaas oo maxkamadda xeer ilaalintan ku aragnay markuu kiis xeer ilaalinta marayo cadeymihiina 100% ay yeelaan inay dadka dhahaan macala gabadhii waxa laga yaabaa ama waalidkii ama qaraabada inay dhahaan kugu maqrad furan waayo dadkii waana heshiinaba gabadha waa lagu tashkiilinayaa waxa la dhahayaa aamusa hadlin waxa waa ceeb wixina way ku dhaceen oo wixii gabadhi waa wixina way ku dhaceen maxay noqon gabadha inay iska aamusto markay aamusto tu kala ku dhaway aamusi marka aamusnaanta haday gabadha maanta hadasho ama student software story kursaday ceeb bay noqonaysaa laakiin caalamka ceeb ma aha oo qofkii marka arrimo noocaas markaad aragtaan oo kaleeto go'aamada qaadataan waxay noqotaa go'aamadan qaadano dadkiiba haday heshiiyeen still laakiin hay'adaha sharci waxay leeyihiin qofka laftirkiisa haddii xitaa heshiin qofka ninkan ama qofkan dhibka geystay in la sharciyeeyo leeyahay laakiin dadkiiba waxay dhaayeen waan heshiinay idinku korba uga baxa gabadhii waxa laga yaabaa gabadhii laftirkeeda inta maskaxda brainwash lagu sameeyo la bedelo in lagu dhaho dee aamus hadlin marka si xal masruur ugu dhameeyaa wixii la qaatay laftirkeeda xaqii la qaatana iidan ma qaadanayso waxba iidan lama siinayo waa caqabad ugu weyn ee haysata way u baahan tahay in education lagu sameeyo ama laba tirtiraba deegaanka waayo tan laftirkeeda waxay sameynaysaa dhiirigelin in fal dambiyeedka inay sii bataan hal sano iyo bar markaan ay adeegtay markaa kubaariis markaa sameyso iyo xiliyada maxaa isbedelay wallaahi wax badan ayaa isbedelay wax badan caqabadana wayna qabsadeen marka anagu waxaan leenahay ka xafiis nabadgelyo ahaan waaxda hawl badan bay qabatay
hadda laftiga qorshayaal badan baa noo qorshaysan oo sanadkan inaan qabano u baahana insha Allah waxaan ku sii faraxsanahay systemkii oo laftirkiisa iyo nidaamka dawladda caawinayo waan ku faraxsanahay marka wax badan inaan qabanay baan anu dareemaya wax badanna hor istaagan yihiin hawl badanna noo taalo kow iyo laba maxaa ugu muhiimsanaa marka sanadii barkaas aad qabateen waxa ugu muhiimsanaa waxyaabaan qabanay laba jeer oo deegaanka jeelasha aan booqanay oo 6 gobol aan ku sameynay sampling waxa kala kamid ah detention centerada iyagana aan u tagno weekly hal isbuuciga mar aan tagno waxaan kale waaxda ay ka qayb ahayd ay sameysay commission la dhaho commissionka dealing with the past ama dhibaatooyinka hadda hor deegaanka ka dhaxay commission baari doono ya qayb ka mid commissionka waa la kabineedka uu ansixiyay baarlamaankana uu ansixiyay sanadka marka commissionka waxa la rajeynaynaa inuu dhaqaaqo oo shaqada qabto commissionkan wuxuu ahaanta commission madax banaan qof walba dhibaato kasta deegaanka wuxuu awood u yeelan doonaa u yeero asagoo isticmaalayo awoodihiisa gaar ku ah commissionka marka wuxuu sameeyaa qofka inuu qirto wuxuu ku qofka inuu qirto inuu dhibaatadan geystay uu qofka kalena raali geliyo inta hadii dhici weydo commissionka wuxuu xaq u yeelan doonaa inuu laama amniga isticmaalo commissionka marka waxa laga yaabaa in dad badan isweydiin karaan commissionka naftigiisa marka shaqadiisa waxay leeyahay dadku uu dhadhaxaadin inuu noqdo oo shaqadiisa tahay oo qofkii dhibaatada geystay kale matalan laba qof dhibaatada ka hor geystay inuu labada qof u yeero oo qofkiiba commissionka horta qofkiiba u tagaya wuxuu dhahay sidana hebel baa dhibaatada igu geystay commissionka qofkii uu yeeraya wuxuu dhahay hebel wuu qiranaya raali gelin noqoto ama compensation buu sameeynaa magdhow uu siinaya labadaas ayuu sameeynaa marka xaqiijinta xar ulaaninta la yiraahdaa commissionka xaqiijinta iyo xal u raadinta deegaanka wixii ka dhacay xilliga asaasan commissionka waa loo dhameystiray asaasidiisa laakiin in uu istaago uu shaqeeyo sanadkan ayaa qorshiisa fishinka wuxuu yahay marka mustaqbalkii qorshihiina la xiriira mustaqbalka 2014 waan ku jirnaa sanad cusub aan ku jirnaa fishanka anaga waxa weeyo deegaanka tacadiga ka yaraado tacadi lama dhiga 100% waa la tirtiraya sida cudurrada qaar laakiin in tacadiga la yareeyo shareynta sharciga lagu dhaqlo hay'adaha cadaaladda ay shaqadooda qabsadaan sareynta sharcigu oo laftirka hay'adaha cadaaladda dadka muwaadiniinta ay u cadaalad falaan sareynta sharciga laftirkoodu equal u noqdo qof walba oo deegaan kamid ah iyo in dhibaatooyinka ama dambiyada waaweyn sida kufsiga oo kale in laga daayo xeer jajab oo laga tirtiro dhamaan aan wax xeer jajab dambe la gelinin inkastoo aan waqtiga oo nahayo oo gabagabadii barnaamijkan ku dhawahay wasde dhinaca wada shaqeynta ya ma jiraan dad hay'adaha bahwadaag la tihiin oo la shaqeysaan xafiiso ugu yaraan 20 xafiis baan bahwadaag leenahay oo dawladda waxa kamid ah xafiiska arrimaha haweenka xafiiska arrimaha bulshada baarlamaanka madaxtooyada qayb waxa jirta arrimaha dumarka iyo haweenka jirta xisbiga liiga federationka xeerlaanta aad way badan yihiin marka way jiraan waxa kale oo jirto hay'adaha international NGO kale iyo UN ayagoo laftirkooda wagartani aad ba maasan tahay waqtiga qaaliga ay hurtay waan kaga mahadcelinayaa su'aasha ugu dambaysa waxay tahay fariin ma jirtaa wax fariina maadaama bulshada ku daawanayso SRTV waxay fursad ku siinaysaa in aragtidaada gudbisiisa bulshada oo la hadashid fariinta halkan uga gudbinayo shacabka dawladda deegaanka waxa weeye hadduu dhibaato ay dhacdo inayna dhibaatada ayna la aamusin for example hadduu tacadi dhaco ama kufsi dhaco qabalaha ugu horeeya inay la xiriiraan hadday noqoto xafiiska nabadgelyada toos oo la soo xiriiraan commissionka booliska arrimaha haweenka xafiisyadaas oo dhan baa u taagan marka inay toos oo la soo xiriiraan waayo tan waxay dhiirigelinaysaa inuu tacadiga laftirkiisa u yaraado laakiin hadday taa ay ku guul dareystaan waxay noqonaysaa inuu tacadigina socdo mar walba dhaco kufsiga mar walba dhaco wayna dhiirigelinaysaa inuu kufsiga iyo tacadiga uu farabato aad baa maasan tahay han maxamed qeyrre agaasinka waaxda xuquuqul insaanka jinsiga ee xafiiska nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida waa markii ugu horeysay ee waaxdan laga hirgeliyay deegaanka Soomaalida aad baan kaga mahadcelinayaa in waqtiga qaaliga noo hurtay barnaamijkan arrimaha bulshada qayb qaadato
waad ku mahadsan tahay. waxaa si gaar ugu mahad celinayaa dhinaca muuqaalka quruxda badan oo si wada jira ay u qaadayeen Ba'alam iyo Cabdiwahaab. intaan barnaamijkan mid lamada aan ku kulmi doono waa Ilka Caasi oo barnaamijka daawada idin soo diyaariyey oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.